السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عافيمات تاما فرحد iyo nolol wanaagsan baan idin rajaynayaa khiyaarta sharafta badan meel kasta aad joogtaan. waxay tiri miisaankayga ayaa kordhay, haweeney xaaslaana waan ahay. ninkayga ayaa mar kasta waxa uu igu yiraahdaa jirkaagu waa u balqay oo wuu kala tegay, anigana xubinkayga taranku waa bila awood oo ma weyna. arrintan jirkaagu haddii uu sida noqday anigu ku qancin kari maayo oo awoodaan kugu qanciyo malihi. markaas waa inaad ka shaqaysaa oo jirkaagan aad beddeshaa, haddii kale arrintan waxaynu noqonaynaa laba qof oo aan isku kalsoonayn ama aan isbaahi tiraynin. ayuu igu yidhaahdaa way tidhi ninkaygu, se laakiin nin ahaan anigu waan jeclahay, wax dhibaataana kuma qabo, ee isaga ayaa arrintaa mar kasta iigu dhaliila. anna haweeney carruur dhashay baan ahay oo jidhkaygu dabacuus ka samaysmay, laakiin ma ihi haweenka jiimka taga. arrintaas qaab dabeeciya oo jidhkayga aan u yarayn karo ma ii soo sheegi kartaan oo ma iga caawin kartaan ayay tidhi. aad bay u mahadsan tahay. haddii taladeeda aynu ku soo dhowaanno haweenaydaas, jidhka haweenaydu haddii uu dabco ama haweenaydu ay cayisho oo cayilkeedu uu saayid noqdo, qaabab badan oo lagu yarayn kara ayaa jira. haweenaydu iyadoo aanay jiim tegin ama iyadoo meelaha fitnesska aanay tegin ee jidhka lagu yareeyo ama jidhka lagu dhiso, waxyaabaha ay samayn karta ama wadiiqooyinka ay mari karta waxaa ka mid a salaada hore inay biyo diiran ay cabto, subaxii inay biyo diiran ay cabto quraacda ka hor. waxa kale oo ay samayn kartaa inay shaaha ay liindhanaan ay ku darsato oo liindhanaantaas shaaha subaxii ay ku cabto. taana way samayn kartaa, way ka caawinayaan inay markaa faadka ay ka dhalaaliyaan. sidoo kale waxay yarayn kartaa cuntooyinka borotiinka leh sida hilibka, ukunta iyo digirta ayaa iska yarayn kartaa waxyaabaha dufan kale ee ka qayb qaadan kara in faadkeedu uu bato ama cayilkeedu uu bato. socodka ay soconayso waa mid muhiima, ama guriga dhexdiisa ama inay markaa goobaha ay ka adeegato ay u socotaana way caawinaysaa. haddaba biyaha diiran ama shaaha oo liindhanaan leh, shaaha bigayska oo liindhanaan lagu tuujiyey waa ka ugu muhiimsan ee jari kara xaydha caloosha ku samaysanta, haweenaydana dhuubi kara. sidoo kale tufaaxa ayaa isaguna muhiima, laakiin shaaha liindhanaanta leh iyo biyaha diiran ee subaxii ay cabta ayaa labada ugu fiicana, islamarkaana ay dareemaysaa muddo 2 wiiga in miisaankeedu uu yaraaday. dhinaca kale ninku inuu haweenayda xaaskiisa ku naco inay cayishay iyo jidhkeedu inuu dabcay waa arrin qalada oo aynu u sheegayno bulshadeenna iyo raggeenna. intaas ayaynu ku soo ururaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.